dagaal kooban ayaa agagaarka xarunta maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxa uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo ciidamo kamid ah kuwa booliska degmadaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Kaaraan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamo ka amar qaata saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen ciidamo booliis ah oo ku sugnaa isgooska Jirwac Buuran oo halka ay ku taalo xarunta maamulka degmada Kaaraan isla markaana halkaasi uu ka dhacay dagaal geesi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxa ku geeriyooday 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliska kuwaasi oo kamid ahaa ciidamada ka howlgala degmada Kaaraan. Wararka qaar ee la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo kadib qulqulutooyin maalmihii la soo dhaafay ka taagna degmada Kaaraan oo dhawaan ay ku dagaalameen ciidamo ay kala hogaaminayaan saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo ciidamada milishiibida dawladda hoose ee Xamar. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya caawa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan isla markaana ciidamadii ka tirsan militariga Soomaaliya ee goobta dagaalka uu ka dhacay ay isaga tageen ayagoona hore ay u qaateen hubkii ay wateen ciidamadii halkaasi lagu dilay ee ka tirsan booliska degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Maalmihii ugu dambeeyay xaaladda degmada Kaaraan ayaa ahayd mid aad u sahal ah kadib markii maalintii Sabtidii aan ka soo gudubnay dagaal qaraari ay muddo 7 saacadood ay ku dagaalamayeen halkaasi ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya. Militariga Soomaaliya ayaa waxa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dagaalkaasi dadka badan ku dhintay oo maalintii Sabtidii aan ka soo gudubnay ka dhacay xarunta maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Wixii ka dambeeyay xiligaasi ayaa dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in 4 sarkaal oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku lug lahaa dagaalkii ka dhacay waqooyiga Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaraan gabi ahaanba gacanta lagu soo dhigo. Wararka qaar ee aan helnay ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in 4 sarkaal ee la carabaabay ama ay carabaabday dawladda Soomaaliya ay isku dayeen gabi ahaanba inay midoobaan isla markaana hal mid ay ugu soo wada jeestaan dawladda Soomaaliya kuwaasi oo ku sugan duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dagaalka kooban ee galabta ka dhacay degmada Kaaraan ayaa waxa saameyn badan ku yeeshay dadka shacabka ee ku nool degmadaasi. Sidoo kale waxa wararka naga soo gaaraya degmadaasi ay sheegayaan in wixii ka dambeeyay 4 galabnimo ee galabta gabi ahaanba istaagay goobihii ganacsiga isku socodka dadka kadib markii dadka ay ka cabsi qabeen in halkaasi dagaal kale ay ku dhaxmaraan ciidamada booliska iyo militariga Soomaaliya. Goobaha ganacsiga ee ku teesan xarunta saldhigga booliska iyo tan degmada Kaaraan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa albaabada la isugu dhiftay kadib markii shacabka ay ka cabsadeen in halkaasi uu ka dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda Soomaaliya. Ragga lagu dilay weerarkii galabta ka dhacay xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa la xaqiijiyay meedkooda in la geeyay xarunta saldhigga booliska degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Shacabka ku nool degmada Kaaraan ayaa waxa soo wajahday qalqal ku aadan in halkaasi ay ku dagaalamaan ciidamada militariga Soomaaliya oo sheegay in ay iska difaaci doonaan weerar waliba ay ku soo qaado dawladda Soomaaliya. Balse dawladda ayaa isku dayaysa in ay gacanta ay ku soo dhigto shakhsiyaadkaasi ay dawladda amartay in sharciga la horkeeno. Sidoo kale habeenadii la soo dhaafay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay weerar ay ku qaadeen hooyiga ay ka degan yihiin 4 sarkaal oo laf ahaantooda aysan ku sugnaan magaalada Muqdisho sida la sheegay kuwaas oo ku dhumaanaysanaya meel ka baxsan caasimadda dalka.